hiraal ee waxbarashada iyo horumarinta waa xarun bixisa qaybaha kala duwan ee tababarada hadday noqon lahayd tababarada loogu talagalay macallimiinta hadday noqon lahayd kuwa loogu talagalay shirkadaha hadday noqon lahayd kuwa loogu talagalay xarumaha dowladda hiraal center waxay bixisaa sidoo kale tababarada xagga maamulka iyo hoggaanka iyo horumarinta nafta hiraal center waxaa la aasaasay 2017 aakhirkiisii waxaana loo aasaasay baahi jirta oo bulshadu ay u baahan tahay adeegyo tababar taas oo ay hiraal center loo aasaasay si ay ugu adeegto bulshadeeda ugana haqabtiro qaybaha kala duwan ee baahiyaheeda tababareed